Waqtigu waa mid ka duwan waqtiyadii hore, riyaduna waxay u muuqataa mid hirgelaysa. Rajadu waa mid iftiinkeeda u soo burqanaysa sidii cadceed subaxeed oo kale. Waxaan ka hadlaynaa waqti xaadirkan kooxda ugu difaaca fiican iyo rajada wanaagsan caalamka, maadaama ay fagaaraha kubadda cagta ay ku muujiyeen awoodooda. Waxay ciyaareen 7 kulan, 7 guul iyo 7 clean sheet. Ma jirto koox kale oo waqti xaadirkan la mid ah difaac ahaan. William Saliba iyo Gabriel Magalhaes ayaa ah derbi adag oo aan mar laba la dhaafi karin. Goolhayaha reer Spain David Raya waxa uu noqday ilaaliye aan la gudbin karin goosha, isagoo badbaadiyey kooxdiisa waqtiyo badan oo ay u baahnaayeen. Dhinaca weerarka waxaa si joogto ah u sii dilaacaya difaacyada kooxda ka soo horjeeda Bukayo Saka, Martinelli iyo xidigaha Victor Gyokeres, Eze iyo xidigaha kale ee dhawaangalka ah ee kooxda Arsenal, kuwaasi oo cabsi badan ka dhigay kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska iyo guud ahaan qaaradda Yurub. Marka aad aragto sidii Arsenal isku difaacayso difaaca adag iyo weerarka halista ah, waxaad dareemaysaa kooxda inay Mikel Arteta u socoto meel fog oo ay doonayaan inay noqoto ama ay qorto bog cusub oo taariikhda kubadda cagta ah. Bal aan eegno natiijooyinkii mucjisada ahaa ee kooxda Arsenal ay gaartay xil ciyaareedkan. 7 kulan ee la soo dhaafay, marnaba dhinaceeda dhulka lama dhigin, xitaa iska dhaaf in laga badiyay gool way laga dhalin waayay. Olympiacos lagu daray West Ham United, Brighton iyo Burnley oo u dambeeyay galabta ayay waxay uga adkaadeen min 2 gool, halka Atletico de Madrid oo lagu tiriyay kooxaha ugu awoodda fiican marka loo eego difaac ahaan, Diego Simeone oo horkaco ayaa waxay gurigooda Fly Emirates Stadium UEFA Champions League 4-0 irka u geliyeen. Crystal Palace oo ay ka wada dhisan yihiin London 1-0 ayay guuldaro dhabarka u saarisay. Fulham oo ayadana ka tirsan kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ee gaar ahaan magaalada London 1-0 ayay uga adkaatay. Haddii Arsenal sii wado qaab ciyaareedkan cajiibka ah, waxaa suurtagal ah in sanadkan ay noqoto mid lagu xusuusan doono sidii xil ciyaareedkii ay Gunners ku hanatay horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska iyo sumcaddii Yuruba. Si kastaba ha ahaatee, kooxda Arsenal iyo Mikel Arteta ayaa ku riyoonaya xil ciyaareedka inay ku guuleystaan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Waxaan ahay Bilaal Daahir Waane. Halkani waa Bilaal Media. Intaa muuqaal kale dib u wada kulmi doono, waxaan idin leeyahay sidaa iyo amaan Allah.